ugaas cali xaashi ugaas axmed oo ka mid ah madaxda dhaqanka Soomaaliya oo shir jira saxaafadda ugu qabta magaalada Muqdisho ayaa eedeymo dusha uga tuuray dowladda Talyaaniga iyo saraakiisha ciidamada nabad ilaalinta dalka u joogay AMISOM. nabadoonka ayaa si carala u sheegay in qarash ay ku bixiyaan dirirta ka socota magaalooyinka dalka qaarkood wuxuuna dalbaday inay faraha kala baxaan arrimaha qabaa'ilada Soomaaliyeed. waxaan rabaa inaan ka hadlo dhowr shay oo dhibaato ku ah dalka Soomaaliya iyo dadka Soomaaliya meel kasta ay joogaanba. tusaale waxaan rabaa inaan ka hadlo dowladda Talyaaniga dhibaato mahadda ah ayay ku reebtay Soomaaliya oo laga dhaxlay ilaa xornimadii laga qaatay ilaa abtunawna ay ku haysaan. waxaa jirta baryahan dambe waxay soo cusboonaysiiyeen fashiistanimadii, dhibaatadii, isku dirkii, kala dilkii dalka iyo dadka ay ku hayeen ayay soo celiyeen. sidaas darteed markaan tusaale u soo qaato meesha hadda ay degan yihiin bal ixtiraam xumadooda fiiriya ee ku taalla Xalane aeroboortkii hore militariga dhabarkiisa oo ka tirsan Waaberi degmada Waaberi waxaa ka iibiyay jananka AMISOM wuxuu ka siiyay adduun lacageed oo dhan $15,000 safaaraday lahaayeen may dayactirtaan oo deegaanay ku lahaayeen meeshaan safaaraday lahaayeen inay safaarada maxaa diiday soo ixtiraam xumo ay dalka iyo dadka u hayaan Soomaaliya. midda kale waxaa taas cadaynaysa oo haddana daliisheeda leh jananka AMISOM ma Uganda ka yimid mase waa Soomaali. waa su'aal taagan Soomaaliya ay bal isweydiiya. intaas waxaan raacinayaa waxaa dhibaato ka taagan tahay oo haddana dhibaato uu ku hayaa gobolka Shabeellada Hoose. dhibaato wuxuu ku hayaan caadi ahayn isaga isku laayay dadka siyaasad isaga ka dambeeyay ahayd. waxaan soo ogaanay inuu isku baabi'inayo dadka. waxaan soo ogaanay inuu niman dullaariina oo damiir laawayaal ah ay ka soo qaateen lacag dhan $2 milyan inuu ku bixiyay si leesu laayo. waxaan ognahay inuu taga meesha masarfeeyo u tagi ma wuxuu u tagay maxay hayto dadka ku dhibaatoonaya miyuu ugu tagay deeq miyuu ugu tagay dowladda Talyaaniga ciidan ka socdaay markay meesha tagayeen oo safiirkoodu tagayay oo jananka ciidamadooda u sareeyaa uu tagayay wuxuu ugu tagay maxay yahay waxay hadina dabka ololaya baasiinka ku sii shubo. waxaan leeyahay soo jeedinayaa dowladda Talyaanigu ha ka baxdo dalka Soomaaliya. sharci darrada meesha ay ku degan tahay ha ka guurto. haddaanay ka guurin Soomaalidu waxaa ka dhamaada dulqaadkii waa laga daba tagi doonaa jawaabtoodayna heli doonaan sida ugu dhaqsaha badan. ma doonayno mana dooni doono dalka Soomaaliya isaga baxdo dowladda Talyaanigu ha ka baxdo. waxaa ka iibiyay nin soo qaatay kaar been abuur ah oo ka socda UNDP aan ka socdaa yiri ID card numberkiisa aan hayno magaciisa saddexna aan hayno la yiraahdo magaciisa ninka la yiraahdo waxa heshiiska u galay oo arintaas ka dambeeyay oo u gaday oo lacagta 15,000 gacantiisa asaga ay ku dhacday ninka la yiraahdo Aliskandar wuxuu watay kaar UNDP ah ID card numberkiisu yahay 180 oo yahay ID-giisu. Aliskandar wuxuu ku sheekeeyay inuu ka socdo UNDP laakiin kama waxaan ogaanay inuu ka socon dhulkaas. waxaa gatay oo le meesha anaa haysta sida saxda ah oo cadaynta ah ninka la yiraahdo jananka ugu sareeyay ciidamada AMISOM oo Ugandiska ah ayaa ka gaday dulaalna ninka Aliskandar ayaa u ahaa oo ay gacantiisa ku dhacdo lacagtu. waxay samaysteen warqado falsification oo ay dad abukaatayaal ah dheheen noo sameeyo oo Soomaali ah. intaasu markaan ka gudbo dhanka kale gobolka Shabeellada Hoose $2 milyan inay ku bixiyeen taasi waa cadaan waa waadax. waxaa cadaana dagaalka inay ka dambeeyaan ayagu inay horinayaan dhibaatada Soomaaliya 100% inay sii horinayaan. waxaan Soomaalida xalaasha aan u sheegayaa inay la dagaalamaan inay baabi'iyaan inay gubaan gaadiidkooda naf iyo maalba ay beegsadaan dowladda Talyaaniga. intaas markaan ka gudbo waa digniin
dowladda Talyaanigu ha ka baxdo dalka Soomaaliya sida ugu dhaqsaha badan ha uga baxdo waxaan ku hadlayaa ummadda Soomaaliyeed afkeeda waxaan ku hadlayaa inta Soomaalinimadu ku jirta afkooda yaa ku hadlayaa waxay weeyday cid xisaabtama waxay weeyday cid safaaradiina daga tiraahda waa ay waayeen bililaqa maahan Soomaaliya mana la biliqaysan doono inta naftu ku jirto qof Soomaaliya arrinta ayaa qayb ka ah eedamaha loo jeeday ciidamada midowga Afrika ee AMISOM Muuse Maxamuud Shiiso magaalada Muqdisho.